إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن شاء الله تعالى أنا وقدر كان براروجين يا وحي هاي قبل كان سنة كودهان قارهان نهر عرقابو هذه يشير كقلبيت كان لتشوقه waxaa la yiraahdaa bariga farta lagu soo fiiqa waxaa la yiraahdaa colaada ku badan dhibaatooyinna way ka dhacaan arintaana waxa weeyaan wax la iska yiri maahay maalin walba idaacadaha iyo TV-yada iyo war unba ka soo dhaca ummadan waa ummad qaali oo muslimiin ah سيئة شيطانك أي أرمها نوع عسك الشقينية المركز دينتين ونأكسن إقاليك إسلامك يقابك يوجه هذا الشيء وحلو يقانو قبيلة دام استلك بينقض بسكدول تاجي إن شاء الله تعالى أن مركبه الرئيسة إلهي سبحانه وتعالى dadka wuxuu u kala saaray laba kooxood aakhirana labada kooxood baa loo kala bixi doonaa wuxuu Ilaahay u kala saaray muslimiin iyo gaalo waxaynu wadanahay muslimiin boqolkiiba boqol إله بينكم مهدنقنا إنكم ما ينادون إله بينادون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومدى مسلمين تا وحو إلهي كت أماني وأوتي المامئين ولا لويهين مسلمين تو ويكو ولا لوبين إيمانك إيا إسلام لماذا إيشيغانيا في سورة الحجرات الهي وحجري إنما المؤمنون إخوة وحقون ولا لا مؤمنين تايا ولا لا مركا لبدا قبيل كلا شيغانيا إيا لبدا استيليا horta marka hore waa walaalo qabiil waxa ka weyn walaalnimada islaamka إلهي مركا وحو يري مؤمنين تؤمبا ولالا فأصلحوا بين أخويكم ودحدين هجاتية ولال نمدا يا إسلام نمدا هجاتية هدو شيطانكو خلدو ويهلكان قبيل كاغا معها وبنتي شيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطانك هو عدونا عدو كدكتبوا إلهي شيطانك بين بيدين شيئا والله يدعوكم إلى الجنة والمغفرة إلهي وحيدنكو يريا جنة يدن بداف شيطانك نمحيدنكو يريا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطانك نوحيد أمره يحمه إذا أمره كانوا يسكر هير باتينا سدا كحريري كان كلا هير باتينا سدا كوشر شيطان بوحاكله إلهي سبحانه وتعالى ووتي المامدتكم إنك لقبيليهين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نبي آدم بينك وضع أبو رنه عليه أفضل الصلاة والتسليم halkaas aynu ka soo wada jeednaa qofna dhagax kama soo dhex bixina nabi aadam buu waliba ka soo jeedaa hadaba ilaahay wuxuu idin ka dhigay qabiilooyin iyo shucuub waa la isku gartaa abtirsiinta nasabka qaraabada xididka macrifadaas ilaahay ugu talagalay subhanahu wa ta'ala laakiin wax ku jar waxna ku xiriiri ma aha ta ilaahay ugu talagalay subhanahu wa ta'ala
dadkana yaa u sharaf badan oo u qiimo badan inna akramakum inda Allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxa ugu qiimo badan ma ninka reer hebel ka soo jeeda ma ninka ma aha laakiin ilaahay waxa agtiisa ugu qiimo badan ka ugu cabsida badan nin walba intuu ilaahay u jiro ee ka cabsado ee xiriir la leeyahay ee cibaadaysto ee cabsidiisu qalbigiisa ku jirto ayuu ilaahay agtiisa sharaf ka leeyahay hadduu ilaahay cabsidiisa ka tago sharaf ma laha walow qabiilka isagu moodayo inuu sareeyo haba ku jiree marka gudida wanaag faris iyo xumaan reebistu bulshada deegaankan ama gobolada bariga ama sanaag waxay ugu baaqaysaa inay ilaahay ka cabsado subxaanahu wa ta'ala inay isku xiriiriyaan islaamnimada inay ka hadhaan dhiigga si fudud lagu daadinayo waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha في سورة النساء إلهي وحوة المامية ومن يقتل قفك الدلاء مؤمنا قف إلهي رسولك سر ميسا متعمدا بريد الدلاء فجزاؤه جهنم كاهو يقسوا جهنم بإلهي وغضب الله عليه إلهي وعرضك سبحانه وتعالى نحريستي سنوا كدري naartana uu ku waaraya bal inta ciqaab la isu daba dhigay tahay ki qof mu'mina muslima dilay bighayr haqq dilay sifaadka mu'miniinta ilaahay wuxuu tilmaamay والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حق دركم الدلان مؤمنين قف مسلم قال لحق دركم الدلان أن رسولك عليه الصلاة والسلام قبيالته وكورما وحيدعوها فإنها منتنة والقبيالة كتغا ويؤريساه قبيالة كتغا ويؤريسا برسولك عليه الصلاة والسلام وحن أريات كد الميريسان يسو كتغ هذا بقول وناك فريسي حما ريبيستو waxay ugu baaqaysaa uqaash salaadiinta oday garboodka haldoorka dhalinyarta rag iyo dumar inay ka hadhaan qabyaalada oo ilaahay dartii qofku wax ku xidhiidhiyo waxna ku jaro awthaq ura al-iimaan iimaanka guntimaha u sareeya waxa kamida qofku inuu ilaahay dartii wax ku xidhiidhiyo ilaahay dartiina uu jaro kan ilaahay rasuulkiisu ka fogaaday jar kan ilaahay rasuulkiisu rumaysan yahay ku xidhiidhi wa awthaq ura al-iimaan kuntimaha ugu adaga iimaanka kamita rasuulku wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam al-muslimu akhul muslim qofka muslimka qofka kale walaalkii muslimka waa walaalkii dhibu ma geysto labada muslimiinta ee dilka iskala hor imanaya ee isdilaya al-qaatilu wal-maqtuulu fi an-naar bu rasuulku alayhi salaatu wasalaam kan hubka la ordayay dilaya walaalkii iyo kan la dilay iska difaacaya labaduba naartay ku jiraan bu rasuulku alayhi salaatu wasalaam oo rasuulka waxa la weydiiyay kan la wax dilay la garayo ahlu naar weeye kan wax la dilay muxuu naarta ku galay saguba wuxuu ku dadaalayay inuu dilay waa la hordilay ee haddii jaanis u banaanaan lahaa iyo fursadii saguba waa kaga horeyn lahaa marka al-qaatilu wal-maqtuulu fi an-naar labada isdilaya ee isdilay muslimiinta seefta iskala hor yimi iyo hubka naartay ku jiraan rasuulku alayhi salaatu wasalaam wala naarta waad kaysan mayno تكاد تميز من الغيظ وإلهي كنت الماما نارتو وحي لدل دلاعدو لا عريسان تهي عريسان تهي كو إلهي رسول كيس عاسيي نارتا إلهي وحو كنت الماما أو والله كسفي إني آدي خطر بدن تهي
naar haddaynu ka badbaadno waynu guulaysanay janno haddaynu gallana waynu guulaysanay qofka naar galana wax allaala wax u dhimani ma jirto wuu hoogay qofkaas iyo khasaare aan khasaare ka dambaynin marka walaalayaal waxaynu insha Allah ta'ala kelmadeeda ku soo ururinayaa waxaynu isku xidhiidhnaa islaamnimaha noqoto waxaynu ku walaalownay diinta islaamka taan isku xidhiidhino qabyaalada aan ka tagno xumaha aan ka tagno wanaagana aan isfarno xumahana aan waxa weeyaan iska reebno sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in